يا حافظا للذكر جئت لدارنا بالخير ثم استبشرت كل الدنا. ابني إياس أتيت نجما لامعا بل كوكبا يجري فيتبعه السنا. أحييت وقتك كبر تاريخ النبي آدم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى وحكى أبور النبي آدم عيد اسكو جرته عيد عد عيد مدو عيد عس عيد حن عيد ونكسن وماشي كتمت كلرك كلا دونا شهدتك بالآدمك. الله سبحانه وتعالى مركو جركيسا iyo jismigiisa uu sameeyay ayuu wuxuu u daayay asagoo meed ah oo wali nafta ku afufin muddo 40 sano ah. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu jirkii nabi aadam u daayay 40 sanadood. maalmaha kamid ah waxa nabi aadam uu meed ah soo agmaray ibliis uu ku dul wareegsaday afku ka galay dabada oo soo baxay. kadib wuxuu aaday malaa'ikta oo la yaaban makhluuqan aad u quruxsan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala abuuray wuxuu noqon doono iyo wixii uu sameyn doono. kadib shaydaanka ibliis ahaa wuxuu dhahay ha ka cabsanina hadii Ilaahay uu salido aniga ayaa halaagi doono. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ruuxda ku afufay nabi aadam maalin jimca ah. markay ruuxda mareysay sanka nabi aadam waa hindisay wuxuuna yiri alxamdulillah. Allahna wuxuu dhahay yarhamuka rabbuka ya aadam. kadib markii nafta la geliyay ay dhamaatay waxa la dhahay orso salaam malaa'ikta ay u tagay nabi aadam. kadib wuxuu dhahay assalaamu alaykum. malaa'iktii waxay dhahay wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. nabi aadam alayhi salaam markuu soo salaamay malaa'ikta ay salaanta ka soo qaadeen. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiraahday aadamow salaantaasi waa salaanta aad isku salaami doontaan adiga iyo duriyadaada. markaasuu nabi aadam yaabay wuxuu yiri ya Allah waa maxay duriyadeyda. kadib Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhabarka ka masaxay nabi aadam wuxuuna tusay waxa ilaa maanta yawmul qiyaamah dhalan doona ayuu hal mar soo mashxaradiyay wada tusay hal mar. maamuus iyo sharaf uu sharfaayo Allah subhanahu wa ta'ala nabi aadam wuxuu amray malaa'ikta inay u sujuudaan nabiyullaahi aadam. malaa'ikta idin loo sujuudeen laakiin waxa diiday ibliis. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu weydiiyay ibliis maxaad ugu sujuudaysay nabiyullaahi aadam alayhi salaam. ibliis wuxuu yiraahday sidaan ugu sujuudaa bashar aad ka abuurtay xarra ama ciid aniga aad ka abuurtay naar. kibir iyo isla weyne dartiis ayuu u diiday. nabi aadam alayhi salaam wuxuu ku noolaa jannada in muddo ah oo ku cidlooday wuxuu weeshado ayuu waayay. kadib maalmaha kamid ah nabi aadam oo hurda ay Allah subhanahu wa ta'ala nabi aadam feertiisa wuxuu ka abuuray Hawaa hooyadii basharka. kadib nabi aadam markuu hurdada ka soo kacay ayuu arkay haweeney ag fadhida. kadib ayuu nabi aadam weydiiyay yaa tahay adiga. markaasay Hawaa dhahday waxaan ahay haweeney. markaasuu nabi aadam weydiiyay maxaa ugu abuuray. markaasay Hawaa dhahday waxa lii abuuray inaad igu xasisho aad igu degto. nabi aadam alayhi salaam wuxuu ahaa caalim. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu baray magac walba oo jiro. malaa'ikta ayaa maalin weydiiyeen maxaad ugu bixisay magaca Hawaa. nabi aadam alayhi salaam wuxuu dhahay Hawaa waxa laga abuuray qof nool. kadib ayay weydiiyeen Hawaa ma jeceshahay. nabi aadam alayhi salaam wuxuu yiri haa waan jeclahay. kadib ayay Hawaa weydiiyeen waxay ku yiraahdeen ma jeceshahay nabi aadam. waxay tiri maya ayadoo og inay jeceshahay jaceelku asaga jecel yahay ka weyn. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu nabi aadam iyo Hawaa u fasaxay wax walba oo jannada kamid ah inay cunaan hadii laga reebo hal geed. geedkaas wuxuu dhahay Allah subhanahu wa ta'ala ha u dhawaanina hana cunina. kadib shaydaanka ibliis ahaa ayaa meesha joogay uuna maqlaayay. kadib ayuu ballan ku qaaday inuu fasaahadin doono oo jidka toosan ka wadi doono uuna ku qasbi doono inay cunaan. waatigu uu ballan ku galay inuu fasaahadin doono uuna halaagi doono nabi aadam alayhi salaam. nabi aadam ibliis dhinac kasta oo ka soo galay sidii uu fasaahadin lahaa ama uu cunsiin lahaa geedkii Allah subhanahu wa ta'ala ka mamnuucay. wuxuu u sheegay inuu kamid noqon doono nabi aadam malaa'ikta. wuxuu kale u sheegay inuu kamid noqon doono dadka ku waari doona jannada. wuxuu si been ah ugu dhaartay Allah subhanahu wa ta'ala waxyaabuhu soo sheegay.
kadib nebi aadam calayhi salaam ma ka filnaynin makhluuq allah abuuray inuu si been ah ugu dhaaran karo. sidaa darteed nebiyullaahi aadam iyo xawaa waxay cuneen geedkii wayna ku fidnooween. nebiyullaahi aadam iyo xawaa markay geedkii cuneen ayaa cawradoodii bannaanka timid. kadib dhirta meesha ka bixisay ayaa jirkoodii ku astureen. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu waafajiyey toobadiisa, way toobad keeneen. allah subxaanahu wa tacaala wuu ka aqbalay toobada. kadib allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u sheegay inuu cadow ku yahay ibliis ilaa yowmulqiyaama. kadib allah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey nebiyullaahi aadam iyo xawaa dhulka ayuu soo dejiyey. nebi aadam wuxuu ku soo dejiyey waddanka indiya, xawaana wuxuu ku dejiyey waddanka sacuudiya, magaalada loo yaqaano hadda jidda. nebiyullaahi aadam calayhi salaam iyo xawaa muddo ayay israadinayeen. kadib waxaa la yidhaahdaa waxay ku kulmeen mustalifa ama carafaad. meeshaas ayuu ka bilowday tarankii bini'aadamka. xawaa waxay dhalaysay mataano wiil iyo gabar ah, waxaana laisku gurin jiray gabar iyo wiil oo kala calool ah, wiil iyo gabar, gabar iyo wiil. qaabiil iyo haabiil, qofkii ugu horreeyey oo dembi ku dhaca, qofkii ugu horreeyey oo dhiig bil'aadam daadiya. qaabiil iyo haabiil waxay ahaayeen laba walaalo ah. sida caadad ahayd waxaa laisku gurin jiray laba isku calool ah oo mataano ah, waxaa loo gurin jiray laba isku calool oo mataano ah si isdhaaf ah, wiil iyo gabar, gabar iyo wiil. qaabiil wuxuu iska diiday inuu guursado gabadhi la dhalatay haabiil. wuxuu naftiisa la jeclaaday inuu guursado gabadhi asagaa la calool ahayd, taasoo oo mamnuuc ahayd. kadib waxay go'aansadeen inay qurbaan ay ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis u baxsadaan. qofkii laga aqbalo uu ku taagan yahay xaqa. kadib qaabiil wuxuu ahaa beeraley, wuxuu soo guray beertiisii mirihii ugu xumaa. qaabiil wuxuu lahaa isagana xoolo, wuxuu soo qaaday wan weyn, xoolihiisii kii ugu fiicnaa. allah subxaanahu wa tacaala cirku wuxuu ka keenay naar ama dab, waxay qaaday wankii haabiil lahaa. sidaas darteed waxaa xaq ku taagnaa haabiil. qaabiil meeshaas wuxuu ka qaaday cuqdo aad u weyn, wuxuuna ugu hanjabay inuu dili doono walaalkiis haabiil. kadib dilkii ayuu ka dhaweeyey, wuxuuna dilay walaalkiis. muddo ayuu walaalkiisa dhabarkiisa ku waday oo wuxuu ku sameeyo ayuu garan waayey. kadib allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo diray laba tuko. kadib way isdagaaleen, mid ayaa la dilay, middii ayaa haddana wax u qoday god, waxayna ku dhex riday wayna ku dugtay. kadib ayuu ka shallaayey, wuxuu dhahay waa walaalkayga ayaan garan waayey waxaan ku sameeyo. kadib goduu qoday, walaalkiisuu ku duugay. nebiyullaahi aadam calayhi salaam dhulku wuxuu ku noolaa muddo 1000 sannadood ah. carruurtiisa waxay gaarayeen 40 ama 120 oo mataano ah. waxaa ugu horreeyey qaabiil iyo walaashiisa yaqliima, waxaana ugu dambeeyey cabdilmuqiid iyo walaashiis ummulmuqiid. waxaa la yidhaahdaa nebiyullaahi aadam calayhi salaam carruurtiisa waxay sii dhaleen iyo waxay sii dhalaayeen intuu noolaa waxay gaarayeen 400 oo kun. nebiyullaahi aadam calayhi salaam wuxuu dhintay maalin jimco ah. intuusan dhimanin ka hor wuxuu khilaafadii dhulka iyo nebinimadaba uu kala dardaarmay wiilkiisa shiith. nebiyullaahi aadam calayhi salaam markuu dhintay carruurtiisii waxay sameeyeen ayay garan waayeen. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo diray malaa'ig. malaa'igtaas ayaa u keentay kafan, qabrigay u qoday, way dhaqday, way ku tukatay, way duugtay. kadib waxay ilmihiisa u sheegeen sida ay isku duugi lahaayeen inay tahay sidaan.